Suldaan Axmed Maxamed oo kamid ah suldaanada qaranka Soomaaliland ayaa maanta xilli uu wareysay dhinacyo badan taabanayay telefishinka caalamiga GTN ayaa waxa uu ka hadlay xildhibaanada ay dhawaan afduwan ciidamada loo yaqaan RRU sidoo kale waxa uu sheegay in xildhibaanada la xirxiray aan loo soo marin sifo sharci waafaqsan waxaana kamid ah hadaladiisa sida tan niman waxaan ku radaa dawladda la doortay oo xiisaanad leh oo aan laga qaadin oo la xirxiray iyagiina ilaa xalay baa la sheegay waxaan leenahay taas hadday jirto dawladnimadii dawladda ka mas'uulahayd dadka dalkana ka mas'uulahayd hadday jirto waxaan leenahay waxa laga qabto haddii aanay jirin cid waliba meesha ay degan tahay iyadaa markaa ku shuqul leh oo dawladnimadii wada baaba'aysaa dawladnimada inoo adkeeya yaan baacibsarina laga talagelinin yaan qole laga talagelinin waa in nidaamkii dawladnimo ku socotaa hawshu hadday ku socon weydo qoys waliba meeshuu degan yahay ayuu sheeganaya dadkii wuu kacayaa ma aha dadkii inuu iska hurdo dadkii dhallinyarada ahaa mustaqbalkooday u soo jeedayaan dawladnimadooday u baahan yihiin in la seefgareeyo la ilaaliyo war waxaannu leenahay nimanka maanta dawladda haystow dadkan baarlamaanka ah ee la xidhxidhaya local government leh ee baarlamaan leh nin waliba xiisad buu leeyo waa la doortaa waa dad la doortay sidiinna qoladiinna madaxweynaha Soomaaliland dadkaa sida adiga lagu doortay yaa loo doortay in ku yar inta la iska qabsado la geeyo jeel oo aan maxkamad la marin waxba ma jiraan markaa nin waliba awoodiisa ayuu ku tallaabsanayaa haddaa idinku fasaxdeen soo sheega ha waalaatee nidaam dawladeed laakiin sharcigii unbay jebisay dhanka kale waxa uu carab ku dhuftay ganacsatada farafareynta kuwaas siyaasadda qaranka Soomaaliland waa sida uu hadalka u dhigay waxaana kamid ah hadaladiisa sida tan warkan dhiilada leh ee soconayay ee magaaladii iyo dadkii galay ee arbushay waxaan dantan ninkan baacibsariga u xidhxidhan ee la leeyahay qof walba waxaa la marinayaa gurigiisa hortiisii waddadii u marayey qaar baa ku jajabay baalkii la qodaaya ee maxaanku idhaha lalahaa waxbaa la dhigayaa annagu cidda le waxaan dawladina male hadday dawladi leedahay dee dadkay kala hadli laydo wuxuu sheegi lahayd qof waliba isagoo iska joogaba dariiqii aqalkiisa u soo marayey ayaa la qodayaa oo cid baa qodaysa waaryaa qodaya mooji laisweydiin maayo dawladdu sheegi mayso dee dadkan baacibtarigaah ku shaqaysanaya waxa ka dayso ka mudasho xisaabta oo dhulkaa iyo hawshaa la qabanayo dadku haw sinaado wadaha la banneeyo dawladdu haw sheegto nidaamka sidaasaannu leenahay haddii la sheegi waayo ninka hayaguna hayn maysid ma joogaysid ka kale qolo ku joogana qolada wax ku hayn maysid dadku sinaantu wax ku yahay haddii la waayo taa waxa la soconayaa ma jiraan waa Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga GTN magaalada Burco.